barnaamijkani waxaanu ku qaban doonaa seeraha magaalada Booramo hadda ku sugannahay waxaanu ku wareysan doonaa dadweynaha kala duwan ee iyagu dambalaadu asaadeen dhexdu ay gudu tahay sidii dhuuxi Boorame birtuwada udgoone kaamel ku yaala Booramo wallahi waa meel jawi degan seerahna iska badaaba kulli waan wada jeednaa Booramo wallahi waa very nice gaar ahaan ana shucuurtida ma soo koobi karo wallahi doolay sidaasa anayga dhiganto kuma dhaafi karaye doolay kulli hasab wallahi iga dhiganto kuma dhaafi karaye وانا دحل ويا شيء صوت عم قلتي بعدين سريع مقالة بورم أنا بقص دور بدين مقالة قيمية كنت بقول حي وانا دقاقو واندو فياي أحد مل مديغنا وانا دقاقو واندو فياي أحد مل مديغنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن دلهانتي بداودياش هذا قيمة شرف يا قيم كمدن كسر هذا برنامج جارة وأنا قوم قعدرني سيره بورما يسومال نيوز برنامج كني وحنا كوكبان دونا سيرها مقالة بورما هذا كسر هاي وحنا نكور يصون دونا ددوينها كردون يوصل الحيس تجاوبت سيرها بورما ميل أدو برواقع إسلام مركزنا جرينا sidoo kale waxaanu dadkaasi weydiin doonaa oo aanu kala sheekaysan doonaa bal waxa ay halkan u yimaadaan isla markaasina ay ka soo doonaan dadweyne aad u kala duwan ayaa ka soo qayb galay galabta oo jimco ah oo aanu ku sugannahay magaaladii Boorame hadda waxaanu joognaa seerihii magaalada Boorame dadkaasi ayaan caawa iska la qaadan doonaa isla markaasina aan kala sheekaysan doonaa bal goobtan iyo sababta u yimaadaan sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa goobtan iyo taariikhdeeda oo dadweyne aad u fara badan ay uga yimaadaan goobo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland sida Laascaanood hargeysa burco iyo magaalooyinka berbera dadkaas ayaynu la xiriiri doonaa dadkaas ayaynu la sheekaysan doonaa oo ka wareysan doonaa sababta ay halkan u yimaadaan iyo waxyaabaha ay ka soo doonaan waana si gudugeli doonaa barnaamijka qof baynu u wareysan doonaa barnaamij aad u xiiso badan baynu ka diyaarin doonaa la socod wanaagsan sidii dhuuxi Boorame birtuwada udgoone bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii Soomaaliyeed iyo seeraha Booramo bartamaha seeraha magaalada Booramo aan taaganahay waxaan kula kulannay qaybo ka mid ah dadweynaha kala duwan ee halkaasi soo booqanaya gabadhan la joogno magaceeda waxaa la yiraahdaa Kafaaya Cabdirashiid bal waxaan ka wareysan doonaa sababta ay u timid seeraha magaalada Booramo oo ay uga soo baxday magaaladii walaal bal isku soo dhawaarta Soomaaliyeed TV bismillaah waan dhawahay marka hore magacaygu saad hore u sheegtay waa Kafaaya Cabdirashiid marka koobaad waxaan halkan u imanay aniga ciyaal baan wadaa meesha ugu quruxsan ee ugu bilicda quruxda badan magaalada Booramo ay inta badan xiiseeyaan qurbo joogta dad badan baa soo booqda ma sha Allah waa meel aad u qurux badan meelka qalbiga ariga ba ku leefsanay hawo fiican bad qaadanaysa ma sha Allah maanta waxay soo bixiyay oo magaaladii iga soo bixiyay waxaan wadaa 4 ciyaal ma sha Allah gabadha yar ku jirta shaymayar oo halkan aad u salaamaan aad u jecelahay waxa ku jira ciyaal yar oo habar yar wahay oo sida awgeed soo saaray ciyaalkaas ayaana keenay magaalada oo ku ciyaal ma sha Allah way markii kuugu horeysay ee goobtan seeraha soo booqataba may marar badan waan iman jirnay anagoo xataa iman jirnay waa meel aad u bilicna ma sha Allah waan keenay ciyaalada anaga kolkoliska management ayaashi waa meesha nafta lagu raadinayo ku sababayn magaaladii Booramo goobo kale qurux badan baa jira dadku goobo kala duwan bay uga yimaadaan goobtan seeraha Booramo sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay meesha waa meel aad u baaxad weyn waa meel aad u qurux badan way jiraan meel kale loo xiisto laakiin meesha waa meel aad u baaxad weyn oo aad u qurux badan hawaana jirta waa meel nadiif ah amnigeedu sugan yahay
وبعوضة وتقوني دامل كيالا way wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii seeraha Boorama iyo Somali News hadda waxaynu dadkeenu la sii sheekaysan doonaa isla markaasina weydiin doonaa bal sababta u yimaadaan seeraha magaalada Boorama meel aad u badan Abdirashiid iyaduna goobtan ku sugan isla markaasina jimcaha imaanada dalxiiska shukri marka hore ku soo dhaw Somali TV sababta aad galabta u timiday seeraha magaalada Boorama maxay tahay كلي وحويان سان هو نظيف وقعدنا ونقول نفسنا ماشى نويجان ميلا فربنا ونقول نفسه لكن ماشى وماشى كلية تهو نظيف ولا كهلا آد النفط تقول عليه قلنا يسوع مركز سعرهنا وميل آد وين إن شاء الله آد ضو فرح سنة كرتون أنت تقوم تنشوفان حال قبنية مرة مرة واحدة مهمة ولا قبنية متى لكن وحويان وإن آد يعني آد النفط تقول عليه قلنا وهو نظيف هالشو ما شاء الله ميل آد imisa waqti baad goobtan seeraha Boorama timiday walaal horta kuma oran kara waqti cayma kuma siin karo laakiin waa waqti aad u fara badan meel laga xiisa dhacana maaha meel laga daalana maaha hadda dadku waxay ka kala yimaadeen goobo kala duwan waxana indhaha iyagu qabanayaan dad sawir ku galaya dad meelaha iska hoos fadhiya dad kale ma wada nasiib u yimaadeen uma maleeyay dad waxa jira maxay dadka meesha waa meel unique way jiraan meelo fara badan oo maxay aad ugu gali kara sawir laakiin uma maleeyay in magaalooyinka kala ay leeyihiin meel سدت بنو ملايين ويمادان ويسافرون لبوكلا. وياي شكري عبد الرشيد بل واحد نوشك تاع جوابها كلا دوين كمية الصومالية أنا الصومالية اللي وقصوا الدلحيس تجو سيرحني مقالة بورما. هرت كمان كرم ماشى سلقي مادا ميلا فرب بدن بلقي مادا صوماليا نودن هرجيس كلو لقي مادا برعوا لقي مادا بربروا لقي مادا سيدا معلمها مناسبة أكله عيدها كلا دتك عاد بوسو بوسمان si ay maxay heedaan meeshan de u yimaadaan ay ugu qaataan hawo nadiif ah oo sawir ugu galgalaan xasuusa marka hada waxay meeshan waxay u tahay Boorama meel de calaamad aad u weyn oo qurux badan وبعوضة دلا ولي waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena Somali News ee seeraha Boorama oo galabta jimcaha ku suganahay magaalada Boorama isla markaasina aan hadda joogno seeraha magaalada Boorama waxaanu dareenka la qaybsan doonaa iyo farxadda dadweynaha kala duwan ee ku soo damaashaadaya seerahaasi magaalada Boorama hadda waxaanu la fadhinaa qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi u soo dalxiis ka tagay waaye Aasiya bal hadda ka waran maxaad u timaadeen galabta واي ما مركي كوجو ريست ما تسرع بورما مي بدن بني مدي إذا ما أسبوع واي هاي جوابها كذا كذا تقول تسرع بورما بدرين كذا هذا كوار قالنا قياس ترى مرحب الو دمبلادو عسادين احدو اي قدو تهاي فريق ما قدنا ولي وحين كوجد جرنا برنامج كيني سومالي سياسة مجال دكتور ما ينقص سكان هاي وحين كل مدونة دوينا عادو ترى بدن هذا واحد قرب كي تاجل لبوا ويل أو يبغى وصل دحين تري سيرها مجال دكتور ما وين بدن جوابا كلا دول لوجي ماتوا بس كنت مرة كورك سولو سومالي ستيف أسوي بيوم وين صوت هذا كبوت معدن مجال دي وصل بحد المحيط أنا يبغى سلامي أركان ومركي مستعد جواب ثاني تماطو. هذا بورما دقنا هم قصير براقات حيوان ما عايش. ويا. درين محي يقول يا حي أي كاجد وأنت جوابها كلمة قالت بورما. وجواب عندك دوك سدان والله تلحيص وكاين ناطع. ويا. إلا وقت ما تشوفي سان حتى. إلا شنطة كلام إلا تشوفي سان. سكب عشان. ويا. حال قبني مركي سري مقالة بورما اللي ماتو تقعد اللي ماتو وحال قبني محي تاني. لكن إسكن في سنة إسكن بعشالان إسكن سويشان يقدروا قد يا لازم نعيشنا هاد بعد ما تنتهي كل دوار يقولون سومالي نيوز تي في وي بقى صوتها قلبت سيرها بورما أوتي مدام حيتها حيتها إن كل يرصدون جوي كبدش سيرها المشان قرص بدل ما يدوق لين قرات وي هاي وقتي قرمة تمادا أما بشي أما سنتكي مسجل بتمادا يجي بس تحجر وي محي ميلها كذا كاجد وانتهي قوبت سيرها بورما محي قد وانتهي وهاي نيدي ده كنت تكتب ماشان dhalinyarada kula qeyrka ay maxaad oranaysaa waxaan oranayaa meel kasto naftu ku degto qowwada waxaan oo Boorama dhaanto laga doorsanaya ma jirto
marka waxaan leeyahay inta nimaado oo ku raaxaysto ku baashaado maxaa la qabanayaa seerii boorama marka la yimaado waxa la qabanaya maxay tahay intaas oo farxad ugu filan dhalinyarada aad baad u mahadsantahay magacaaga muxuu ah bismillaahir rahmaanir rahiim iftah raafi على dhax way sababta halkan u timid maxay tahay waxa uu yimid inaan jeeyo meesha ku dalxiiso doogii wax iska daawado sawiraan iyo wax noocaas aan ku galo yani indhaha inaan ugu doojiyaan ku dalxiisay meesha adigu mar reer boorama tahay aan reer boorama fasax baan jooga waan yimiday dalxiisaan maanta ayaan soo booqday inay imaadasay xageed ka timid markaa aan waxaan ka yimid Itoobiya ka timid bal hadda jawiga iyo bal dadka iyo bal hadda ka waran والله waa meel aad iyo aad habi oo raaxo dareemaysa marka xagaa soo kala yimid hablaha iyo wiilasha ku dalxiisaya aad u qurux badan way dareen noociyay bay adiga ku sameynaysaa mar hadda Itoobiya ka timid farxaan ana indhii doogteen oo meel qurux badan tagay iyo maxay ka laami doonaa meesha waa meel aad maxaa galaya iyo damaashaadka maxaa ka fahamtay waxaan ka fahmay inay tahay meesha meel qurux badan oo dadkii maxay isugu imanayaan oo yani iyagoo faraxsan oo jawigu yani bedeshay inay ka tagayaan meesha aad baad birtuwada udgoone kaamel ku yaala daawadayaal wali waxaynu ku jirnaa barnaamijkeena seeraha Boorama iyo Soomaali News TV oo hadda dhex taaganahay seerihi magaalada Boorama waxaanu la kulmaynaa ama la dalxiisaynaa dadweynaha kala duwan ee iyagu goobtan seeraha Boorama ku dalxiisaya hadda waxay la fadhiyo Mustafa oo ah wax ka barta jaamacadda Hamud University isla markaasina ka yimiday magaalada Muqdisho hadda bal halkan maxaa u timid Mustafa marka hore aad baan u salaamay way seeruhu oo kaga duwan yahay magaaladii Boorama inteedii kolay wallahi aad iyo aad u qurxoon weeyaan dadweynuhu isugu yimaadeen meel jooga weeyaan meel awdooda aad u tahay waa meel raaxo ah qof fasax ku jiro iyadana loogu talagalay marka meel aad wanaagsan weeyaan way dareen noociyay baad ka qaaday markii seerihi hadda la yimaado dadkii waa adiga arkay way wada fadhiya maxaa la qabanayaa wallahi kolay badanka laba la isla socdaa waa la wada sheekaysan asxaabta la wadaagaysa dareen farxadeed aad u weyn weeyaan aniga ahaantayda marka meesha yimaado waa meel way dadweynaha kale ama dhalinyarada adiga kula mid maxaad oranaysaa kolay wallahi kolay badankooda way yimaadeen idinkan sidoo kale nala yimaado nala arka meesha quruxdeeda way waqti maad goobtan seeraha magaalada Boorama timaadeen goormaad si ka tageysaan kolay hadda wallahi 2 sanadood baan joogaa saantii hore fasax baan ku dhawaatay laakiin saantii la tagay isku joogay marka hadda wala 2 sano kale aan soo socday marka dole waqtiga aad seeraha Boorama timaadeen galabta si goormaad ka noqonaysaan waxaan nimaanaa adii 5 ilaa 4 waa qorax yaro qoraxa jirta marka 5 markii qoraxda ku waaso ayaan nimaanaa ilaa iyo 6 iyo barta ama 6 iyo 2 meelaha way aad baad u mahadsantahay Mustafa waa dadweynaha reer Muqdisho ee ku dhaqan magaalada Boorama isla markaasina u jooga waxbarashada sidoo kale waxa uu waqtiyadiisa u jaaniska hayo ee jaamacadda faraaqada ka yahay u soo nasasho taga ama u soo dalxiis taga goobtan seeraha magaalada Boorama oo ay dadweynuhu inta badan u soo dalxiis tagaan aad baad Mustafa u mahadsantahay thank you so much ubax wada dhalaalo dambalaadu casaade dhexdu ay gudubtay daawadayaal wali waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni aan ugu magac darnay seeraha Boorama iyo Soomaali News waxaynu ku wareysanay ama aynu kula kulannay dadweyne kala duwan oo iyagu halkaasi ku dalxiisay isla markaasina waxay noo sheegeen in ay halkan u yimaadaan nasiimo iyo dalxiis oo ay tahay goob taariikhi ah isla markaasina lagu dalxiiso barnaamijku waynu sii wadi doonaa waxaynu kula kulmi doonaa dadweynaha kala duwan qaybihiisa kala duwan ee iyagu ku dalxiisaya seeraha magaalada Boorama naga caajisina wali halkaas aynu ka sii wadi doonaa anaiga dhiganto kuma dhaafi karaye dhoolay sidaas anaiga dhiganto kuma dhaafi karaye wali waxaynu dhex mushaaxaynaa barnaamijkeeni Soomaali News TV iyo seeraha magaalada Boorama oo aanu dadka dareenka la qaybsanayno isla markaasina dalxiisayaasha aanu weydiin doono sababta ay u yimaadaan seeraha magaalada Boorama walaal horta ku soo dhawaatay Soomaali News TV waan dhawahay walaalaha sababta aad u timaadeen seeraha magaalada Boorama aad uga soo door bideen magaalada qaybeeda kala duwan maxay tahay iyo dalxiis dareen ahaan maxay dadku way sawirayaan qaar way fadhiyaan maxaa kaaga baxaya kulli magaalada buuqiyo iska jiraan markaad soo gasho jawigan degan aad kulli suuliyo ma dareemaysaa
dhalinyarada qaybadeeda kala duwan maxaad fariin u diraysaa inay maalinta jimcaha kulli iska free baa leeyahay raydhan la qaato si refreshment loo qaato waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena Soomaali News iyo seeraha magaalada Boorama oo hadda ku sugannahay hadda waxa garabkayga taagan wiil isagu soo dalxiis tagay goobtaasi seeraha magaalada Boorama waxaan wax ka weydiin doonaa bal sababta uu doorbiday inuu seeraha magaalada Boorama yimaado meesha joogiga ayaa iska fiican xagga dalxiiska meel yar oo aad u fiican aad baan jimcaha soo dalxiisnaa waxaad ka timaday waddanka Itoobiya sida aad sheegtay maxaa kaaga baxaya marka jawigan aad ka fiican wallahi waxaan nolosha aad ugu ugu farxaysan aad baan ugu dugsanaya meesha saas ayaan hadda goobta markaad timid maxaad qaban doontaa hadda wallahi inaan sawiraan ku galano aan imid inaan ku nastano aan imid indhaha yani jawi degan meesha maxaad ku aragtay intii aad taagnayd waxaan ku arkay abuurta mudday meesha sawiraan iyo dalxiis aniguna waxaan imid soo kale inaan marka faraxsano jawi degan meesha markii kugu horeysay seeraha magaalada Boorama timaadaa in badan laakiin waa markii ugu horeysay ku arkay meesha waraysi ka jira aad baad maad ku arkaa warahmatullahi wabarakatuh waan salaamay namadaydi أنا waxaan touristi Djibouti baan ka soo baxay seeraha Boorama aan soo shir tagay waan soo xagaa baxay dhammaan ummadda Maxamedka oo dhan salaamaya dadka reer Boorama oo dhan salaamaya gaar ahaan dadweynaha islaamka oo dhan salaamaya okay assalaamu calaykum ninkan waa maxaad seeraha u timid sababta u timid maxay sababtaan mid waan soo shir tagay maxaan ku raday naacawda iyo macaanka ka dhacaya si aan madaragtaan ugu raaxaysto naftayda ilaa ajidaalka yaanu imiday way ma markii kugu horeysay seeraha Boorama طبعا ها ومركي يقولس maxaa kaaga baxay markaa waxa iga baxay maxaan ku dhahay indhaha iyo madaragtaan ku qaatay nuur sidaa waan jecelaaday ajidaalka okay way dalxiiskan aad timaday yaa kugu helinay maqashaydii iyo awlaadaydi oo imka hareeriin aad baad maasanta markaan beerta imiday dirtan Boorama markaan imiday seeraha Boorama imiday ajab galisay waxa aan idin ayaan idinka sheekeynaa indhihii abarsaday marbay barwaaqada u baxdaane boqorow biyahan badan ee bariyadan kala dhexyaal maxaa bariga iyaga uga ba'ay maduunu dhaxal u yeeshee وليدا وضيال waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena Soomaali News TV iyo seeraha magaalada Boorama waxaan la kulmaynaa ama aan waqtiga la qaadayna dadweynaha kala duwan ee iyagoo halkaas ku soo dalxiisaya hadda waxa ila fadhiya wiil kamid ah dadweynaha halkaas ku soo dalxiisay bal marka hore ku soo dhaw Soomaali News TV aad baan ugu dhawaayay way sababta aad halkan u timiday galinka dambe ee maanta oo Jimcaha maxay tahay waxay tahay meel indho ay ka qorxoonsanaadaan oo xaggan ama dhul cagaaran ma jiraan magaalada Boorama xaggan seeraha marka sababta ugu jirta waxay tahay inaan xaggan wayahay waxaan ku arkaynaa ilaa maanta adiga oo fadhiya markay dadku halkan yimaadaan maxay qabtaan adoo dadku badan waxay yimaadaan inay sawiraan ku galaan dadka qaarna iska fadhiistaan iska nastaan sida aniga oo kale aan hadda nasashan inda sawiraan laakiin dadka markaan soo arko waxay yimaadaan inay sawiraan ku galaan iska badankooda muxuu jawigii ku sameeyaa markaad aragto dadka qaar baa sawir galaya tigaadii jawigii aad u qurux badan muxuu macna ku sameeyaa waxa macna ay sameeyaa adoo isbedel xagga nolosha dadka iimaanaya horumar adoo haday noqoto xagga roobka iyo noodaya dirtiyo qorxoonana saas xaggan eega iyadoo dhir badan kuma taalo waa tigaad kaliya dadku markaa sawiraanta waxay u galayeen background xagga dambe ama si ay sawirka u qorxoonaado iyagoo si fiican markaa sawiraanta u galaya dhalinyarada da'daada soo kale oo galinka dambe maanta magaaladii fadhiya maxaad ugu baaqi lahayd badan horta dhalinyarada da'deedana oo kale waxay ku mashquulaan inay kubad iyo waxyaabo noocaas ah tagaan laakiin saan waxa ku mashquulan xidhan la dhulkan qorxoonaya leeydh ka dhacaso iska imaada caafimaadkiina way fiican tahay indhihiina way fiican tahay aad baad maasanta dhanka kale waxa fadhiya isaguna wiil sidaas oo kale u soo dalxiis tagay way jamaal ku soo dhaw TV-ga caalamiga Soomaali News way sababta seeraha Boorama galabta u timid maxay tahay sababta halkan maadaama ay tahay qurux badan magaalada Boorama ku taala inaan farxad la qaato dadka iyadoo faraxsan iska jooga dhulka Boorama ayaan ana ugu talagalay inaan soo dalxiisto dhulka iska qurxoon sababtoo ah ileen Boorama badankeyga way ku yaalaan magaalooyin dhan laga baxo sida Camuud oo kale seeraha balayada waxyaabo badan way ku yaalaan maadaama ay tahay dhul qurux badan inaan indhahayga farxad u siiyo iska soo dalxiiso inta galinka dambe yaana way maxay micna ku sameynaysaa markaad
xaafadii ka timaado ee seeri magaalada Boorama soo booqato maxay macna ku sameynaysaa waxay macnaheedu sameynaysaa maadaama ay tahay qurux badan oo indhahayga farxad gelin kara inaan leedheys kaga qaato aan ku faraxsanaado ugu daray way ma jeclaan lahayd in sidani laga sii casriyeeyo isla markaasina goobo qurux badan loo sameeyo deyr lagu xiro ma jeclaan lahayd si fiican hadoo ma daawadayaal wali waxaynu ku guda jirnaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeennii Somali News TV iyo seeraha magaalada Boorama waxaanu la damaashaadaynay ama aynu waqtiga la qaybsanaynay dadweynaha kala duwan ee iyagu halkan u soo dalxiis tagaya hadda waxa garabkayga taagan gabadh iyadu u soo dalxiis tagtay galabtani inay ku dalxiisto seeraha magaalada Boorama marka hore walaal raxma ku soo dhaw TV-ga caalamka Somali News walaalood maadantay wandhawahay kulay ma koobi karo shucuurteyda Boorama wallahi waa meel jawi degan seerahana iska badaaba kulay waan wada jeednaa Boorama wallahi waa very nice gaar ahaan ana shucuurteyda ma soo koobi karo wallahi ayaanay way sababta aad u timiday ee qaybiga kale magaalada uga soo doorbiday maxay tahay waayo aad meeshan jawigeeda aad jawi badan waad qaadan kartaa jawigeedana hadaad aragto kulay waan wada jeednaa ma filayaa way wala yimaada meeshii waan aragno waa timaadeen maxaa la qabtaa kulay dalxiisan baa loo yimaadaa iyo sawir la galo dowga quruxdiisa baa loo yimaadaa kulay jawiga noocan markaad aragto ee dadkii oo sawiraya xoolihii iyo daaqaya dadweynihii oo soo qayb galay maxaa adiga dareenoo kaaga baxay wallahi billahi waxaan isiri mar haday Boorama saan tahay inaan ka tigaba laga ma yaabo gabdhaha kale qeyrka ay maxaad ugu baaqaysaa inay had iyo jeer ayna meesha ka maqnaan joogaan had iyo jeer adigu ma waxa tahay dadka ku dhaqan magaalada Boorama mise meel kale aad ka tahay ma yaaniga dadka ku dhaqan magaalada Boorama baan ahay aad baad maadsan وأركان وأنا دحل ويشي وأني قندقاقو daawadayaal waxaynu ku jirnaa gunti iyo gabagabadii barnaamijkeennii seeraha Boorama iyo Somali News TV hadda waxa agteeda fadhida gabadh iyaduna sidoo kale u dalxiis timaday seerahaasi magaalada Boorama waxaynu wax ka weydiin doonaa bal sababta ay u timaday seeraha magaalada Boorama iyo waxa keenay horta ku soo dhaw TV-ga caalamka Somali News dhalinyarada ku nool gobolka Cawda ama ahaan Boorama ama ku dhashay magaalada Boorama oo soo laabtay meel aad u wanaagsan aad u qurux badan dadkana ku kala boornayna maadaama ay soo dalxiis sababta halkan u timid maxay tahay waa meel aad jawiga wanaagsan aadna aan u jecelahay inaan markasta toddobaadkii mise jeer baad timaadaa inaan ama laba jeer ama saddex jeer maadaama meel laga xiiso goyn karo maaha meel aad u wanaagsan dareen nooceeya baa kaaga baxay aad ana wax taga xaafadada habbi balaastas bilaabo waxa tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama waxa kula talnaa isbeena magaaladuna aamin fayaaye axadi meel ma dhigana